Soomaalidu leedahay waxa weeye anigoo maanta inaan si clear u sheego waxaan doonay wax weeyaan cadawga saddexaad ee Soomaalidu leedahay waxa weeye siyaasi Ismaaciil Cumar Geelle. Ismaaciil Cumar Geelle waa cadow siyaasadeed oo geeska Afrika oo dhan halis ku haya. Nin baa jira dhalinyaro ah oo reer Djibouti oo qoraal ah 1900 iyo waxaan u malinayaa 790 Ismaaciil Cumar Geelle intuu madaxweyne noqon 2 sano ka hor joornaal la joojiyay jariidad Djibouti ka soo bixi jirtay iyuu ku qori jiray maqaalka loo yaqaano iftitaaxyada lagu furfurashada wuxuu ku qoray Faransiis baa lagu qori jiray Faransiis baa laga hadlayo afka rasmiga officialka sida Kenya Ingiriiska official yahay wuxuu ku qoray setom taswiirtiisa soo dhigay suuradiisa setom iyo danjere wuxuu yiri ninkani waa halis madaxweyne markaa ma noqon wuxuu tiriyay iyo halis ku yahay wuxuu sheegay wuxuu halis ku yahay 6 qolo waxa kamid ah dadka uu sheegay ninkaasi xun baa loo galay markii dambe wuxuu sheegay wuxuu halis ku yahay reer Djibouti oo ka bilaabay laba wuxuu halis ka yahay reerka uu ka dhashay Soomaali ka yahay oo Djibouti iyo Soomaaliya iyo Itoobiya degan wuxuu halis ku yahay buu ninkani Soomaalida wuxuu halis ku yahay buu geeska Afrika ammaankiisa oo hubku gadaa buu wuxuu halis ku yahay buu Yaman wuxuu ka gadaa buu hubka iyo khamriga iyo xashishada wax aynkaas oo dhan ayuu tiriyay ninkaas setom iyo danjere ninkani waa khatar buu ninkaas sidaas ah Soomaalida shirkii cartu u ooyo rubba la mooday laakiin aanu in badan ma Soomaalida la fariisin jiray waa ninkani wuxuu yahayna waa wax wuxuu inii sheegayna waa wax kale laakiin maanta alxamdulillah uu soo dibad baxay uu dibadoonay soo taagay dagaalka ka socda gobolka Canfarta iyo Soomaalida ee Itoobiya ka socda wuxuu ku leeyahay lug weyn iyo gacan weyn labada qoloba hub u diraa waxyaalada xamar ka dhaca gacan buu ku leeyahay hub iibinta gacan buu ku leeyahay ninkani waa nin halis ah weeyaan wuxuu halis markaa ku yahay waxa weeye security waxa loo yaqaano regional security yani istiqraarka iyo deganaanshaha gobolka iyo halis ku yahay Soomaalida muxuu u diidan yahay inay Soomaaliya dawlad ka dhalato muxuu u diidan yahay dadku waxay inuu dawlad rabo muxuu u diidan yahay saddex arrimood buu u diidan yahay arrimo dhaqaale weeyaan waxaan maanta anigu ogahay madaxweynayaasha xukuma ee dawladaha hoose ee Soomaaliya dhammaantood wuxuu leeyahay gacan saar lacageed shirkadu loo sameystay dikadda Djibouti bay ku wada leeyihiin shirkado iyo kana meelahoogu shirkado ku leeyahay min Kismaayo ilaa laga soo bilaabo Boosaaso ilaa Barbara ilaa laga imanayo Djibouti iyo Tajora intaba wuxuu ku leeyahay sharikaad